السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش شرفت له سومال يونيفرس ما انت برامجكنا waxaan ku soo qadan doonaa tobanka dal ee ugu baasaboorka fiican qaaradda Afrika balse booqashadan hadii ay tahay mid ugu horeysay ee channelkeena Somal Universe fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto channelkeena sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad videogan like saarto wixii tali iyo tusaale ahna aad inoogu soo gudbiso qaybta aaraada ee comments-ka mahadsanidin dalka tobnaad Gambia qofka sita baasaboorka dalka Gambia waxa uu si free ah ku gali karaa 45 dal halka 25 dalna uu fiisaha ka qaadan karo marka uu ka dawo garoonka diyaaradaha dalka uu socdo 128 dal ee kale caalamka waxa lagu xujeenayaa inuu haysto fiisahooda inta uusan u safrin dalalkaas dalka sagaalaad Namibia muwaadiniinta u dhashay dalka Namibia waxa ay si free ah ku gali karaan 29 dal 42 dalna waxa ay fiisahooda ka qaadan karaan dalalka ay u socdeen markii ay gaaraan garoonkooda diyaaradaha halka 127 dal ee kale caalamka ay qasab tahay inay haystaan fiisahooda inta aysan safrin dalka sideedaad Kenya dalka aynu dariskanahay ee Kenya ayaa ka soo muuqday 10 dal ee ugu baasaboorka fiican qaaradda Afrika 39 dal ay Kenyaanku ku gali karaan fiisa la'aan 33 dalna waxa ay fiisahooda ka qaadan karaan garoonka diyaaradaha halka 126 dal ee kala caalamka ay qasab tahay inay haystaan fiisahooda dalka toddobaad Malawi dalkan dhaca koonfur bari ee qaaradda Afrika ayaa kaalinta toddobaad kaga jira liiska 10 dal ee ugu baasaboorka fiican qaaradda Afrika iyadoo muwaadiniintiisu ay si free ah ku gali karaan 44 dal 29 dal ay garoonka ka qaadanayaan fiisaha iyadoona 125 dal ee kale caalamka laga rabo in ay fiisahooda haystaan inta aysan ka soo bixin dalkooda hooyo dalka lixaad Swaziland dalkan yar ee ku yaala koonfurta qaaradda Afrika tirada dadkiisuna gaarayaan 1.3 milyan ayaa ah dalka lixaad ee ugu baasaboorka fiican 54 dal ee qaaradda Afrika ka kooban tahay 49 dal ay muwaadiniinta ka soo jeeda dalkan gali karaan fiisa la'aan halka ay 28 dal ay fiisahooda si fudud uga qaadan karaan markii ay gaaraan garoonka diyaaradaha ee dalka u socdeen baasaboorka dalka Swaziland ayaana kaalinta lixdanaad kaga jira baasaboorada ugu fiican caalamka dalka shanaad Lesotho wadankan buuraha caanka ku ah ay muwaadiniintu fiisa la'aan gali karaan 47 dal 29 dal waxa ay si fudud fiisaha uga qaadan karaan garoonka diyaaradaha ee dalka ay u safrayeen dalka afraad Botswana dalkan dariis kale ah dalka South Africa ahna dal qani ku ah duurjoogta ayaa ku jira kaalinta 58 baasaboorada ugu fiican caalamka halka ay kaalinta afraad kaga jiraan baasaboorada ugu fiican qaaradda Afrika 49 dal ay fiisa la'aan gali karaan muwaadiniintiisa 28 dalna fiisaha ay garoonka si fudud uga qaadan karaan 121 dalna waa inay soo dalbadaan muwaadiniintiisu safarkooda ka hor kaalinta saddexaad South Africa dalkan leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika ay muwaadiniintiisu 64 dal oo ku kala yaala daafaha caalamka fiisa la'aan gali karaan 33 dalna garoonka ay fiisaha ka qaadanayaan 101 dalna waa inay haystaan fiisahooda ka hor safarkooda kaalinta labaad Mauritius jasiiradan yar ee dhacda bariga Afrika ahna dalka 25aad ee ugu baasaboorka fiican caalamka waxa ay kaalinta labaad kaga jiraan 10 dal ee ugu baasaboorka fiican qaaradda Afrika shakhsiga sita baasaboorka dalka Mauritius waxa uu si free ah ku gali karaa 99 dal 32 dalna hore ay ka qaadan karaan markii ay gaaraan garoonka diyaaradaha ee dalka u socdeen 67 dal ee kale caalamka waa inay haystaan fiisahooda inta aysan safrin kaalinta koowaad Seychelles dalkan Andriiska ka nahay dhanka badda ahna dalka ugu fiican marka laga hadlayo 10 dal ee ugu baasaboorka fiican qaaradda Afrika muwaadiniintiisu waxa ay fiisa la'aan gali karaan 104 dal 31 dalna fiisaha ay garoonka ka qaadan karaan halka 64 dal oo qura ay qasab tahay inay haystaan fiisaha dalalkaas inta aysan safrin Seychelles ayaa kaalinta 22aad kaga jirta baasaboorada ugu fiican caalamka haddaba daawade sidee u aragtaa in baasaboorka Soomaaliga uusan ka soo muuqan liiska 10 dal ee ugu baasaboorka fiican qaaradda Afrika